الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بيشو maanta waa 11 waa bishii shanaad 2017 halkan maanta waxaan isugu nimi kalfadhigii dawladda hoose caadiga ah oo maanta aad moodo inuu kii dawladda hoose ka balaaran yahay oo uu yahay heer gobol maadaama ciidamadii ammaanku nagula jireen maadaama nagula jireen wasaaradda waxbarashadu maadaama wasaaradda caafimaadku nala joogtay uu ka balaaran yahay kalfadhigeygii caadiga ah uu ka balaaran yahay inteeda waxa isu kaaya keentay waa halista maanta ku wajahan degmada Burco gobolka Togdheer qaranka Soomaaliland sidii laga yeelaa maadaama maanta xanuun shuban biyooda oo meel aad u halisa maraya uu ku habsaday gobolkan Togdheer degmada Burco waxa intaas isugu timi maxaa laga yeelay shaqadii aynu haynay sideen sii lama laabna anagoo walba ka shaqeynayna ilaa iyo maalintii uu bilaabmay xanuunkaas oo xataa ka shaqeynayna gobolladayada ahayn sida gobolka Daadmareed iyo gobolka Buuhoodle shubanka waan ka soo shaqeyn ilaa ayna baan ka shaqeynay degmooyin tuulooyinka ay xukunto waxaan uga shaqeynayna xaaladda ayaa waxay xaalad taf dheer oo degmo kasta iyo gobol kasta ka taf dheer oo u baahan in heer qaran wax laga qabto maantana waxaanu sii go'aansanay inaanu sii laban laabno dardargelintayadii iyo wixii aanu qabanaynay inaanu sii laban laabno naf iyo maalba inaanu isku darno xildhibaanadu shaqeeyaan baabuurta dawladda hoose shaqeyso shaqaalaha dawladda hoose shaqeeyaan waaxdan caafimaadka dawladda hoose la kordhiyo wax allaale waxay u baahan tahay bini'aadamkii dawadii gaadiidkii wax walba la kordhiyo waxaanu maanta go'aan ku gaadhnay golaha deegaanka degmada Burco annagoo la kaashanay wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada ciidankii amniga 9 qodob baan isla gaadhnay 9 qodob ay ugu horeyso qodobka koowaad gobolkan Togdheer degmada Burco saacada laga bilaabo inay ku jirto xaalad degdeg oo caafimaad qodobka labaad in wacyigelinta dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadku ay iska kaashanayaan la laban laabo oo la sii laban laabo qodobka saddexaad xildhibaanada afarta waaxood oo har iyo habeen baabuur gaar la siiyay shidaal gaar la siiyay wax allaale waxay u baahnaayeen loo berbergareeyay oo habeen iyo maalinba sida ambalaasyada shaqeynaya oo aan fariisanayn qodobka shanaad maadaama xanuunku uu inta badan ka imanayo xaq nadaafad darro in marka la sameeyo dardargelin nadaafadeed oo qeyr caadi la galo qodobka shanaad imtixaanaadkii iskuulaadka oo loo diyaarha gabi ahaan been la joojiyo oo aan la qaadin waxaanu tusaale ka soo qaadnay iskuulka la yiraahdo Sheekh Bashiir 2,000 arday baa dhigta jeelkii iyo waarkina waxay u jiraan 100 mitir bay u jiraan halista imtixaanka dib loo dhigo waxa nagala daraatay halista caruurteena ubadkeena halka jooga waxaan markaa go'aan ku gaadhnay imtixaanka totalamiinto in la joojiyo wasaaradda waqtiga ay qaadayso ardayda markay soo noqoto ha ka qaado laakiin maanta la joojiyo waxaan iyagana fasax lagu kala diraya dhammaan malcaamadaha iyo iskuulada madaxa banaan bareefadiyada meesha isugu yimaadaan dadkuba in iyagana fasax dheer ay yihiin umurahaas waxa kaloo qodobka toddobaad farmasiyadii waxay noqdeen waa dhar kale qof dadkii baa la keenaya waa lagu daweynaya halkaas la dhigaya xanuunkii bartaas ka sii fidaya inagoo u sameynay karantiin farmasiyada dhamaantood waxaan leenahay qofka irba degdeg waa ku mudi kara laakiin farmasi dad la dhigaa ma jiri doono qodobka 8aad TV-yada dhamaantiin way maqlaysaa wax allaale waxa TV ka shaqeeya degmada Burco gobolkan Togdheer waa inay qayb ka siiyaan barnaamijyadooda wacyigelinta shuban biyoodka gobolkan Togdheer degmada Burco qaranka Soomaaliland TV-gaan waqti siina waayo hawshana waa hawl qaran waa faqaranka ku absatay waxaan leenahay TV-yadu ha iska xilqaameen oo iyaguna waqti u gaara ha bixiyeen iyo idaacadaha
idaacadda qarankan u jeeda dawooyinka qolada horseeladiska waxay sameeyaan tuula imika loonaya shuban baa ka jiro ciddii tuulada degnayd baa soo ordayso waxa laal wixii dawo taalay ee lagu daweyn lahaa tuula laga yaabo in laga iibiyo howlseelada waxaan leenahay cidda dawada laga iibinayaa waa inay noqotaa cidda caafimaadka u xil saaran wasaaradda caafimaadku wayna xog ka haysaa oo dadka dawooyinka iibiya ay si dhow la socotaa maadaama dawada dhakhtarka taalla aanay kooban tahay oo aanay nagu fileen cidda aynu ku tiirsannahayna ay tahay ragga markaa dawada keena dawadaasi waa inay noqotaa mid wax anfacda oo dadka jiifa lagu mudo waa inay noqotaa qodobadaas sagaalkaa halkaan ka yeedhinay gobol ahaan kontaroolada magaalada waxaanu dhigaynaa shaqaaleed tababaran oo dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka isugu jira wixii baxayana waa la buufinaya wixii soo gelayana waa la buufinaya arrinkan wasaaraddan iska kaashanayna waxaan arrinkaa 10kaa qodob cidda daba taagan oo sideeda la doonayo inay u fuliso waa ciidanka ammaanka iyo dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka oo iskaashanaya qaranka Soomaaliland ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagaa keenay xanuunka isagaana qaadi kara isagaanu qaylo u diraynaa marka hore mar labaadka qaranka Soomaaliland waxaanu ka doonaynaa gurmad degdeg baan ka doonaynaa hay'adaha madaxa bannaan ee ka shaqeeya caafimaadkana ayagana gurmad baan ka doonaynaa gurmadka ilaahay baa haya waxaan ka tagay xildhibaanada iyo gudoomiye ku-xigeenka xogayaa odhan doona